Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdulle Nadaara, waxaan ahay soo saaraha barnaamijyada ka baxa kanaalka Hoyga Bulshada. Ku soo dhowaada mowduuceena maanta. 10 qof ee ugu sarreeya ee dadka lacagta ka sameeya YouTube ayaan maanta idinla wadaagi doonaa. fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin, fadlan subscribe noo saar, kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka Hoyga Bulshada. Waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. maqashay dadka YouTube-ka lacagta ka sameeyay waxyaabaha ay uga sameeyaan. Dadba way kala duwan yihiin. Dad ayaa cilmiyada ku soo gudbiya, dad ayaa madadaalo ku soo gudbiya, dad ayaa heeso iyo waxyaabaha kale ku soo gudbiya. Balse maanta waxaan idinla wadaagi doonaa dadka lacagta ugu badan YouTube ka sameeyay. Wiil 8 jir ah oo bartiisa YouTube ku soo bandhiga kartoomada iyo filmaanta ay daawadaan carruurtu ayaa sanadkii labaad noqday qofka ugu lacagta badan ee ka sameeya YouTube. Rayaan oo YouTube-kiisa ay ku qoran yahay Rayaan is Award ayaa sanadkan YouTube-kiisa ka sameeyay lacag gaadhaysa $26 milyan, halka sanadkii 2008 uu ka sameeyay lacag gaadhaysa $22 milyan. Ciwaanada YouTube-bada ee kaalmaha koowaad, labaad iyo saddexaadba soo galay waxaa la yiraahdaa Dude Perfect iyo Natesta. Kaalinta labaad iyo saddexaad ay soo galeen waxayna ka sameeyeen lacag gaadhaya $20 milyan, $18 milyan iyo $15 milyan. Guud ahaan lacagta ay sameeyeen 10 qof ee sanadka 2019 lacagta ugu badan ka sameeyay YouTube waa lacag gaadhaysa $160 milyan. Kaalmaha koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad, shanaad, lixaad, toddobaad, sideedaad iyo sagaalaad, tobnaad waxaa galay magacyada halkan ku qoran yihiin oo ugu horeeyo Rayaan is Award. kalena Rayaan oo ah wiil aad u daayar, waxa uu degan yahay gobolka Texas. Rayaan waxa uu degan yahay gobolka Texas, waxa uuna la nool yahay qoyskiisa oo ka kooban hooyadii, aabihii iyo 2 gabdhood oo la dhashay oo mataan ah. Rayaan ayaa muuqaalada kartoomada oo YouTube-kiisa soo dhigi jiray maalin kasta, waxa uuna soo dhigay muuqaalada markaan soo dhigo dib ayaan haddana u daawadaa, aniga ayaaba ku madadaasha. Rayaan ayaa muuqaalada soo dhigay bartiisa YouTube-ka waxaa daawada dad ka badan 1.9 bilyan oo qof oo dunida daafaheeda kala jooga. Soomaalida YouTube-ka isticmaasha ayaan iyaguna soo gelin kaalmo aan markaasi macquul ahayn, waxayna soo galaan kaalin baynana gelin ayaa lagu tilmaamaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dadkii ugu saameynta badnaa ee YouTube-ka lacagtiina ugu badnaana ka sameeyay sanadkan 2019.